Bismillahi raxmaani raxiim. Waa Muxidiin Xuseen Ciid. Halkan waxaan jeclahay inaan ku qabto maasadii Galiiliyada Caaisha ee aan ka tiriyey dhacdada foosha xumeed ee gaalka ay ku dhacday looguna geystay dil iyo kufsi gabar 12 jir ah magaceeduna ahaa Caaisha Ilyaas Aadan. Maasada waxaa ku wada hadli doona aabaha dhalay Caaisha Ilyaas Aadan iyo Caaisha oo tilmaamaysa in maanta guriga adduunyada ay ka tagtay mid ka fiican ay joogto, kana walwalsan saameynta qoyskii ay ka tagtay dhacdada foosha xumeed ku dhacday ku yeelan doonto, sidoo kalena ka walwalsan gabdhaha iyo haweenka Soomaaliyeed haddaana laga hortagin wixii ayada ku dhacay inay u noqon doonto waddo u furantay kuna dhici doonto. Sidoo kalena waxay gar u naqsanaysaa waa ragga Soomaaliyeed fiirsanaya dhacdada noocaana godobtuna dhinacooda ay jidho. haddaba kusoo dhawaada maasada waxaan ku halqabsan doonaa saaxiibkay Mahad Abuukar Xirsi oo ah inaan saaxiib nahay, dhacdadu markay dhacdayna igu soo wargashay. haddaba kusoo dhawaada maasadii Galiiliyada Caaisha. Mahadow Galiiliyada oogadayda gubaysiyo gantaalaha holcaya wadnaha layga gamay ee ka gilgilo isleeyahay waa godob xanuunliyo Caasho gowraceedii, waxa aan la goohee gogashana u diido gudcur aan caddaba jirin garta aan u naqaya. adiguna garaadow iga gunud warkaygoo gaarsiiya adduunka iyo gaygeena Soomaal inta garan warkaygii mudug gooyaheedii kuwii gabadha iga dilay kufsi geeri ugu daray inaan dunida guudkeed galab aan u wada hoyan ilaa godka Caaisha gudubka ay u taal garbaheeda lala dhigo xaqana looga gooyo geenyaday galaafteen. waxse fajacba aan galay dayaxaa guudkeena markay geeyadaydii gacan iiga taagto fariin gacalla igu tiri aabbow gartaadii godkay iigu tumi inaad gama'ba aad ladin gogashana aad diido la galgalan fallaaraha geeridayda kugu helay. anase kaa guraayoo farxad gelin naftaadae gabadhaadii Caaisha guulihii ku siiyey gurigiisii joogtaa gudihii furdoysay gogasheedii taallaa gacalow rasuulkiyo sallallahu calayhi wasalam ambiyadii guyaal hore galbatoo xijaabtay golo kula cawaysa. geenyadii waxay tiri aabbow ha geylamin naftaaduna guhaadiyo ha guulguulin abidkaa, gafka layga galay iyo godobtaiyo dhibaatada kuwaa geystay ee falay raggaa garashadoodii ka geyn weyday xumahee inan aan gankeed gelin kufsi geeri ugu daray iyagaa guuldarro iyo caawa godob la jiifo shaxiimana u guurayn. geenyadii waxay tiri ma aan kaya gelin qura aabbow ma aan gelin rag unuba guuyada goodkiyo abeesada aarkaa waxgana iyo gugumahaba ka liitaan haddaad gacal aad moodana ku googoosan adigoo wax u geysan abidkaa. geenyadii waxay tiri haddii aad guyaal hore gaalkacyo u taqaaneen guri gobi ku noolayd gaarida haweenkuna guudka ay u saarnayd gaf haddiiba laga galo ragi uu u go'i jiray guur markay timaadana gayaankii jeclaadaa geel wuxuu lahaa iyo gamaankii fardood golo sooba tuubi jiray. gar markii ay joogtana go-aankii ay jeedshaan guddoon lagu afjari jiray. gaddu maahantii shalay maanta way gumoobeen xumay guudka saarteen gowracaygaa marag u ah. dhallingaabis weeyaan caqligu uu ka gaasiray duqay geed fadhiiso garta xaajo naqi kara xaqna garabba siin kara guudka mudug ma joogaan. maamulkaa gardaadiya xumaha iyo gaboodko marka uu ka gaabsado gudashadii xilkii uu guudka uba saarsaday. sharci wuxuu galaaftaa mid aan garab lahaynoo gooyihiisa lagu arag qabiil gardarrada ku saacida. annaga calahaygow geeridaydu waxay noqon guddigood haween idil geyigeenna Soomaali gees walbay ka joogaan gaashaan ay u qaataan gaf iyo eed in laga galo xumo guudka saartaan. go-aankoodna wuxuu yahay ragi godobta uu sido xaq haddaana laga gudin gogol inay uga guuraan guurna ay ka diidaan kuwaa gabay xilkoodii. gibintaan jeclaayay farxad gelisay naftii aan guhaadkaiyo ciilkaba baday. gallad eebba weeyaan gudihii fardowsaad googashaad ku jiiftaa garashadaadu siday tiri anna gabay oo iga xiran
guddigood haween go-aan waxay ka sugayaan raggi wuxuu ku garbaxo gobi ay istaahisho oo guddoonba noqon kara. Guddigood haween go-aan waxay ka sugayaan rag wuxuu ku garbaxo gobi ay istaahisho oo guddoonba noqon kara.